عبد القادر مكلا محمد عبد المختار هذا سماح محمد اسماعيل حاجي وعلي محمد عمر محمود هذا موسى بولاد وعليسي وأنا عسكري مركب وعن شيء ما أسكت له واحد من أنا صام عندي كوكولة كوكولة هي عندي لكوكولة هي واحد مع سؤال كل ما تقول له واحد طلع على صندوقها ما دام على تلفونه وكاس ما فرق وكوكولة وأوجدي waxaa isu sharaxnay laba wiil oo walaalaheena oo kala ah maxamed cusmaan xaaji iyo abuukar salaad xasan alxamdulilah ilaahay maadii wareegga hore doorashadu wuxuu ku gabagaboobay si nabadgelyo ah oon buuq iyo dhibaato lahayn oo sidii loogu talagalay ay ku dhammaatay waxaa guud ahaan codaysay 117 qofood ayaa codaysay codka guud wuxuu noqoyay 117 qofood waxaa talagalkeenu ahay inay codayso 119 halkaas waxaa naga halaabay 2 cod aan naga maqnay oo goobta soo istaagay waxaa noo codaysay marka 117 hal codna wuu naga halaabay waxaa si rasmi u codaysay marka 116 qofood waxaa marka codadkii helay 98 cod waxaa ku guuleystay maxamed cismaan xaaji madaalaha aan ka yaraysan oo asina dadaalay wuxuu helay codkii ku xigay oo ahay 18 cod marka saaxan waxaa ku dhawaaqnay inuu ku guuleystay guddoomiyaha hoggaanka ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed inuu noqdo maxamed cismaan xaaji oo ku guuleystay qofka shaqaalaha ay ama ka tirsanaado private-ka sector-ka gaarka ama ka tirsanka sector-ka guud waxaa la idin rabaa xuquuqdooda inaad doontaan xuquuqaha waxyaabaha lagu doonayo sharciga sheegaya aniga dalkan 3 sano jooga wali ma arag urur shaqaale oo u qaylinayo xuquuq ka maqan maaran waa inaad si aad u heshaan xuquuqdiina waa in la idin arko awoodin inaad muujisaan caalamku waa caalam lagu xisaabtamo awood baa lagu xisaabtamaya marka awoodda dalku waa shaqaalaha iyo dhalinyarada farxad ay noo tahay ka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed ee maanta idin la jooga annagoo leh shaqo baarlamaan maanta oo aan halkaan u joogno farxad weyn ay noo tahay inaan ka soo qayb galno barnaamijkan qiimaha leh waana xil aad noo igmateen inaan idinku matalno munaasabadaha gaarka aan leedihiin marka ugu horeyso waxaan u mahadcelinayaa guddigii doorashada maanta qabaqaabiyey oo ka koobnaa 5 xubnood oo sharaf leh isla markaasna na xasuusiyey doorashooyinkii dalka ka dhacay 2012kii guddiyada doorasho aan lahayn guddiyadaas ay la mid ahaayeen maanta sida barnaamijka ay u qabaqaabiyeen waxaaba dhihi karnaa annaga xilligaas waaba naga fiicnaayeen oo maanta si heer sare u soo agaasimeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogeyaha iyo gabdhaha sharafta leh ee maanta 5 xubnood ee barnaamijka qabaqaabiyey mahad ballaaran idin jeedinaynaa hadana xildhibaanadii baarlamaanka
shaqaa gudateen ilaahay abaalmarina idinka sii insha allah. marka kale waxaan u hambaleynayaa xubnihii maanta la doortay kala ahaa guddoomiyaha cusub ee la doortay iyo xogeyaha guud cusub ee la doortay. waxaan rajaynayaa insha allahu waxyaabahan u qaban doono ururkan ururweynaha Soomaaliyeed ee shaqaalaha inaan kulamada dambe iyo inaan sheego, laakiin waxa ugu horeeya ay tahay in xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed aynu dhowrno. sidaad ogtihiinba burburkii kadib waxaa jiray dad badan oo ku qaraabta ururada ama hay'adaha Soomaaliya ka jira oo ay ugu horeeyaan rag sheeganaya inay yihiin rag matalay shaqaalaha Soomaaliyeed oo dadka loo yaqaano briefcase organizations ama baag yar ku wata warqado oo doonaya inay xuquuqdii Soomaalida shaqaalaha dhabta ay lahaayeen inay ku qaataan dalka dibadiisa. marka ugu horeyn waxaa idin ballan qaadayaa inaan ka hortagi doono oo la dagaalami doono dadka noocaasa oo aan gaarsiin doono ururkan heer caalami insha Allah taala. waxaa dhacday in doorashadaasi sidii aad aragtay sida xor iyo xalaal u dhacday. waxaa nasiib ahayd in si shaqaalaha Soomaaliyeed niyad ah wanaag ah ay u codeeyeen iyagoona cidna ka cabsanaynin sanduuqa ku rideen sida qofka iyaga matalaya ay u soo doortaan. waxaa is leeyahay waxay ahayd 117 qof meel Soomaaliya inta isugu yimaadeen hawel ay qof doortaan. waxaa leeyahay waa maalin taariikhi ah oo maanta ugu horeysay. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu mas'uuliyadan adag oo ay shaqaalaha Soomaaliyeed saartay inaan ka soo bixi doono. arrintan aniga waxay ahayd farxad gaar ah maadaama waxaan dareemay in shaqaale i jecel oo in xilka aan u haayo. waxaa is leeyahay ilaahay inuu ugu garab galo in shaqaalaha si cadaalad ah ugu shaqeeyo, inaan danahooda ka shaqeeyo, inuusan ilaahay igu garab galin inaan danahayga ka shaqeysto oo aan danaha shaqaalaha ka shaqeeyo, inuusan ilaahay u garab galin. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa inuu anigana igu hanuuniyo inaan waddadii shaqaalaha dantooda ahayd ka shaqeeyo. waxaan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo in aan ku guuleysan in shaqaalaha Soomaaliyeed way dhiban yihiin. waxaa ogtahay shaqaale ajnabi fara badan dalka jooga oo shaqooyinka ay Soomaalida qaban lahaayeen qabtaan. waxaa ogtahay in shaqaalaha Soomaaliyeed aysan contract haysanin oo xilliga raba shaqada laga buriyo. waxaa ogtahay habka dowladda shaqada ay u qorto oo is leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhanna way ogtahay oo ah in aqoon iyo xildhibaano iyo in shaqada lagu qoro aanan jirin wax la yiraahdo shaqo hab hufnaan shaqo qoris ah oo loo siman yahay in shaqada la qoro. waxaan aad is leeyahay waxaa isugaysa hawl aad u fara badan oo halkan kusoo koobi karin. waxaan is leeyahay in shaqaalaha Soomaaliyeed la shaqeyn doonaan xubnihii kale ee ahaa 9 xubnood ee boardka ah ee ay ururada shaqaalaha soo gudbiseen oo sida ayagana gacantaaga ah lagu ansixiyay oo ay ururada shaqaalaha ansixiyeen in ayagana ila shaqeyn doonaan. waxaa is leeyahay shaqaalaha Soomaaliyeed waxaan u noqon doonaa inaan u hadlo xuquuqdoodii soo dhiciyo, dowladda shuruucdii shaqaalaha dib loogu soo noqdo, baarlamaanka guddiga arrimaha bulshada gaar ahaan guddiga shaqaalaha kala shaqeyn doona in xuquuqda shaqaalaha shuruucdoodii baarlamaanka la marsiiyo, wasaaradda shaqada soo gudbiso. waxaa is leeyahay hawl adag oo fara badan oo ii taallo. waxaan diyaar u ahay inaan habeen iyo maalin u soo jeedo in shaqaalihii Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jireen ay ka baxaan.